تبع يعني waxay ka soo saartay wixii inankii odaygu isdhaadeen inankii waan ka shakiyo ilaa maanta sheekay aan waxba macnaheeda fahmi waayay ayuunbu inanku igula hadlayay bal sheekadii waxay ka taataabay tiinan dabadna wuxuu sheegay barnaamijkii uu sheegay hebel oo dhintay baan aaskiisa ka kulanay ayaan ka qayb galay wuxuu yiri miyuu go'aymisa u dhintay dabadna waxaan ku yiri maxaad kala wada isku mid dhimasho iyo go'is waa isla biday haddana waa soconoo anagoo daalano tabcaano saankii soo dhamaynay oo dhexda marayna ayuu yiri hebel oo qaadaan baa ku qaado dabadna waxaan ku yiri marka hore insa saarnay taan kaga sii shaqeeyay inuu arrinkiisu aan sax ahayna geedkan guriga agtiisa markaan marayno ayuu yiri abta walaha geedkan ku yaala ma taasaan goostaa bisataa dadna inta sheekadii bay odagii u macnaysay waxay tahay aab marka kulahaa qaad aan baa ku qaado markuu lahaa hebel oo go'ay ugu tagteen wuu kula nin ubad ma ka tagay mise kama tagay hadduu nin ubad ka tagay uu go'ay يعني reerkiisu waa joogay isagu baa go'ay oo reerkii ka tagay magaciisu waa joogaa haddii laakiin si aanu u badalin ninkaas uu dhintay markii yani saamisana soo noqoteen daalanaydina waa daalanaydina wax ku yiraahdo hebel oo ii sheekay amba ku sheekay haddaad uu sheekayn lahaa amba aad u sheekayn lahayd de socodka ay laabi lahayd marka geedka la isku xulinayay marka geedka agtiisa aad marto sheekada inoo dhameeyo markaas aan gadaal ka hadli doonaa waxaan doonaa waqtigan isku soo marka geedka agtiisa la marayana waa kalbada suma baxay marka geedka agtiisa la marayana ulahan geedkan taasa go'samsata wuxuu ku yiri labadaada hablooma tayar baad siin bisata way haduna xatay taa doonto gooso labada yaarood markuu inoo yimaado taa doonto si insha Allah taala marka waxyaabaha la isku culan jiray yaanihi guurka yaani hore oo haasilaas oo ha talan talabaadan day waxay marka dadku isku xulanayeen yaani go'shada ma iibsanayna iyaga samaysanayay ha gurigana iyaga dhisanayay يعني waxyaabahan guurkan iyo kaas ay ku kala tagsan yihiin wala koob khayre lacabo wala sanduuqa wax marka waxa leedahay haasawaha wax kasta way u haysteen ugu soo noqon doonaa waaga hone bal nooga waran haasawahan waqtigan casriga ah dhalinyartu say isku shukaansato oo ay u wada xidhiidhaan anigu horto haddaan israaho ka sheekee kan imika taagan xaadirkan iyo qarni ka hor baan ka sheekeyn karaa qarni waxa la yiraahdaa 10 sano ka hor xilligan guursaday bay heedo de sheekadu sharaf iyo wanaag iyo ixtiraam baan ku ogaa laakiin imika sheekada imika jirta ama haasawaha jirta horta waxaad moodaa dadka inay moodaysid inay jaamacado ka qalin jibinayaan waxaad arkaysaa dadka oranaya 3 sano aan isla sheekaysanay 4 sano aan isla sheekaysanay inaan magaalo wada joogo oo technology-gu u fudud yahay oo wax kasta u fudud yahay 4 sano iyo 5 sano iyo 3 sano marka la wada sheekaysanayo qof kasta uu iska garan karaa wixii ka dhici kara wixii ka filan laga filan karo in saameynteedu intay leeg tahay labadan qof ee bilaadanaya ummadoo dhan ama isku ogaataa ama waalid isku ogaaday halkay ku dambeyn doonto ma lees helaya mise lees behelayo in haasawaha imika horta waxaan oran karayaa waa haasawe xadkii ama loogu talagalay ka baxay waayo haasawo wuxuu ahaan jiray target buu lahaan jiray haasawo marka la leeyahay ma aha waqti lumis mana aha aynu isla socono mana aha aynu dadka istusno wuxuu ahaa inuu target yeesho hadafkaas oo ah guur waayo inaan wax isku bartaan ee lagu wada haasawe lagu wada hadlaa de ma ahayn bari wadada la kumlaano guur buu ahaa haddaynu dadka haasawaha imika aynu eegno 90% waxay u dhowday dadaan wada iskuursan 10% ayaa iskuursada marka la leeyahay reasonskana ama sababahana waa la garan karaayo laba qof oo 4 sano banaan ku wada sheekaysanayay horta waxay guriga isku la tagayaan ama 5 sano guriga isku la tagayaan ma jirto waxaan xaadir ahaan soo joogay dad 5 sano 6 sano jacaylkii adduunku ka dhaxeeyay guri baa la